السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا 10 كواد قيبتا لباد أنا كورسدا أنا هبكا المكورينتا أما أنا parenting style أو لغة الصومالية 10 كانوا حكو سافسين هاي أنا هبكا ليرهدو أنا ku magacaaban dabacsanaan Soomaali ahaan permissive style ayaa la dhahaa Ingiriiska marka habkan waa hab la isticmaalo waan dul maraynaa sidaan idin soo sheegay casharadii hore waxaa jiro laba cabir oo lagu cabiro hababka ilmo korinta oo ah diiranaan iyo xakameyn habna diiranaantu ku sareeya xakameyntu ku hooseeya hab waa dhexdhexaad hab xakameyntu ku sareeya diiranaantana wuu ku hooseeya habkan hadda aan ka hadlayno oo permissive style-ka ama dabacsanaanta wuxuu ku sareeyaa diiranaanta aad yani jacaylka ilmaha la hadalkooda wuxuuna aad ugu hooseeyaa xakameynta ama controlka ama amar bixinta marka sidaad shaashada ka aragtaan waxaan ku magacaabay haye waan ka hadli doonaa more about that laakiin xusuuso haddaad maqashid dabacsanaan ama permissive waxaa ereyga laga rabaa inaad xasuusato haye kii hore aan kasoo hadalnay oo keligii taliska ahaa wuxuu lahaa erey waxaa ladinka rabaa inaad xasuusataan waxyaabaha guud oo aad ku garan doontaan muxuu ahay habkan waxaa ka mid ah diiranaan ama dabacsanaan badan ayaa meesha ka jirto waxaa kaloo ka jiraysa xakameyn la-aan xakameyn ma laha waxaa kaloo jirto ogolaansho aan xad lahayn wax kasto mutawassidka fiican marka waxaa jirto in ma arkino wax walbaba la leeyahay haye marka waxaan fiirin doonaa casharkeena labaad oo qaybtan ku saabsan tusaalana insha Allah waan idin tusin doonaa iyadoo waxa laga wada sameeyay xataa filma laga sameeyay habkan dadka la rabo in lagu baro waalidiinta maxaa haboon maxaana habooneyn casharka labaad ee qaybtan labaad ee koorsada wuxuu ku saabsanaan doonaa dabeecadaha waalidka habkan isticmaalo laana waxaan waa wax loo kuur garay la bartay cilmi baaris lagu sameeyay waalidiin ayaa isticmaashay marka muhiimadda waan arki doonaa maxaa loola jeedaa maxaa loo bartay laakiin aan marka hore fiirino muxuu yahay waalidiinta habka ay u dhaqmaan marka ay raacayaan ilmo korinta ku salaysan dabacsanaanta. Assalaamu calaykum.